wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo weeriyay wasiirka hoggaanka wasaaraddaasi ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray xarunta gobolka Saaxil magaalada Berbera waxayna soo indheeyeen dekada magaalada xeebta Berbera isla markaana waxa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay maarayaha dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ugu dambeyntii xafiiska SPA ee Port Authority-ga ayaanu shir ku galnay oo nagula shireen wasiiradu dhammaan qaybaha kala duwan ee ka hawlgala dekada aad baan ugu faraxsanahay inay mar labaad iyo maaha markii u horeysay markii u dambeysay noqon mayso insha Allah wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay safarkan shaqo ee ku soo gaaray xarunta gobolka Saaxil iyo ujeedadeedu ugu horeysay waxa inaanu xoogaal u noqono sidii hawshu u socoto customka waxaan la kulanay shaqaalaha waxaan la kulanay madaxda shaqaalaha in la kulanay isla markaana waxaan kormeer ku soo maray dekada anagoo markaa ka faa'iideysanayna imaatinkayga halkan ama joogitaankayga halkan ayaanu sidoo sheegay maareeyuhu waxaanu soo maray airportka waxaan kala soo maray waanu mataqaana kormeer ku soo maray halkan laga dhisayo korontada laga dhalinayo cadceeda markii dambe la kulanay madaxa DB World baan la kulanay iyo maareeyaha dekada aan la kulanay saddexda waan soo wadanay si aanu mataqaana xoogaa lagu noqono si hawlo socdaan isla markaana aanu uga wada hadalno si aanu saakaashan lahayn sidii loo fudan lahaa hawlaha dekada aad baan ugu faraxsanahay waxaan doonayaa runtii inaan ka faa'iideysano fursadda uga mahad celiyo maareeyaha sidii wanaagsan oo noo soo dhaweeyay iyo maxaa madaxa DB World isaga laftiisa iyo madaxda customka ee wasaaraddeedaba waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Somali Cable TV